qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena aroornimo saaka waxaa ka mid ah dalka Yemen waxaa ka socda dabaaldeg iyo farxad dadweynuhu banaanka ay taageen imaaraadki ayaa dalkaas xoog looga saaray Sacuudiga 24 saac ay ugu dambeyn u qabtay wasaaradda difaaca imaaraadka carabta waxa ay sheegtay in ay ka wada baxayso dalka Yemen oo ay ku sugnayd ilaa sanadkii 2029 sheekaya ablo arinta ku saabsan ayaan idin diyaariyay ugu dambeyn imaaraadkii waabiya ayaa helay qodobada sidoo kale barnaamijka aroornimo saaka aad ku maqli doonto iyana waxa kamid ah laas caanood waa la iskugu soo baxay dadweynuhu shalay ilaa iyo xalay ilaa iyo daraad waxa ay taagan yihiin banaanka calanka Soomaaliya ee buluuga ayaa noqday calaamada ugu weyn oo dadka reer laas caanood ay ruuxayaan oo ay banaanka la taagan yihiin iyagoo sheegay si walba in ay Soomaalinimadu iyagu u tahay gorgortana laga gorgortamaynin islaamnimada kadib macluumaad cajiib oo arinta ku saabsan ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale barnaamijka aroornimo saaka idinku haynay iyana waxa kamid ah wariyaal la sheegay inay ka socdaan Israa'iil ayaa booqday Somaliland iyadoo Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay saaka tabinayaan in militariga Israa'iil iyo maamulka Netanyahu ay dadweynaha reer Gaza gaar ahaan caruurtii oo gaajo la dhibaataysan ay mar kale mamnuuceen hay'adihii kaalmada bini'aadanimada koobna Gaza geynayay taas oo la sheegay xaaladda macluusha iyo gaajada caruurta reer Gaza inay kor u qaadayso oo ay meel adag gaarsinayso iyana warbixin ayaan idinkaga diyaariyay qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan iskula eegi doonaa wararkii u dambeeyay iyo falcelintii laga sameeyay aqoonsiga Somaliland ay Israa'iil aqoonsatay boqor buur madoobe ayaa waxa uu ku hadlay hadal Soomaalida iyo baraha bulshada aad loogu hadalay iyadoo uu ku dhawaaqay ama uu qayb ka yahay dadka sida weyn ugu ololeynayo aqoonsiga Somaliland Israa'iil aqoonsatay isla markaana ugu faraxsanaa hadda wuxuu banaanka la soo istaagay Somaliland waxay diyaar u tahay inay Puntland la midowdo barnaamijkan iskula eegi doonaa aynu ku bilowno barnaamijkeena aroornimo saakay qodobka ugu horeeya dalka Yemen waxaa ka socda dabaaldegyo waaweyn oo ay dadweynuhu banaanka taagan yihiin iyagoo u dabaaldegaya guul taariikhi ah oo dhacday kadib markii imaaraadka carabta wasaaraddeeda difaaca ay ku dhawaaqday in ay guud ahaan ka baxayso dalka Yemen kadib markii Sacuudiga ay soo saareen hanjabaad iyo digniin isla markaana ay waqti u qabteen imaaraadka carabta inay ka baxaan dalka Yemen guud ahaan faragelinta ay ku hayaanna ay si buuxda u joojiyaan gaar ahaan waxaa si weyn dadku ay iskugu soo baxeen Shabwa oo meesha dabaaldega ugu weyn hadda ay ka socdaan laakiin Sacuudiga ma ahan talaabada ay qaadeen kaliya inay digniin soo saareen isla shalay waxa ay garaaceen koonfurta dalka Yemen goob ay ku sugnaayeen ama ay ku soo degan jireen maraakiibta iyo sidoo kale qalabka uu soo gelin jiray imaaraadka dalka Yemen taas oo keentay qalqal iyo cabsi weyn oo imaaraadka mar kale wajahda wasaaradda difaaca imaaraadka carabta ayaa waxa ay ku dhawaaqday sida page-keeda ay soo gelisay warbaahinta caalamkan ay u soo qaateen iyo kuwa carabta in ay ugu dambeyn imaaraadka carabta ka baxayso dalka Yemen oo ay ku sugnayd ilaa sanadkii 2019 oo isla markaa lagu eedeeyay in imaaraadka carabta ay taageerayeen kooxda STC ee koonfurta dalka Yemen imaaraadka ayaa lagu eedeeyay in uu diyaarinayo qorshe ah in uu kala jaro dalweynaha reer Yemen gaar ahaan isagoo qorsheynay in uu dhiso waxa loogu yeeray in dawladda koonfurta Yemen taas oo doonaysa inuu ku dhawaaqdo gooni u goosad ama inay ka go'do Yemen inteeda kale waxaana arrintan si weyn hoos uga riixayay ama waday kooxda imaaraadka carabta maamusha si kastaba ha noqotee warka soo yeeray wasaaradda difaaca ay soo saartay imaaraadka carabta inay ka baxayso dalka Yemen waxa aad u soo dhaweeyay dadweynaha reer Yemen iyadoo deegaanada Yemen inta badan xalay laga dabaaldegay dadkuna ay aad u faraxsanaayeen imaaraadka carabta ayaa hadda u muuqda in aad looga soo horjeestay dalalka muslimiinta gaar ahaan faragelinta uu ku hayo dunida islaamka imaaraadka ayaa lagu eedeeyay xasuuqa iyo dambiyada waaweyn ee dagaal ka dhacay Suudaan inuu qayb ka yahay Liibiya inuu qayb ka yahay Soomaaliya oo hadda ku lug leeyahay iyo sidoo kale dalal kale oo muslimiin oo iyagana eedeeyay oo ay kamid tahay Algeria uga digtay imaaraadka inuu faraha kala baxo arrimaha gudaha dalka Algeria si kastaba ha noqotee talaabada maanta imaaraadka carabta iyo xalay ee la sheegay inuu uga baxayo dalka Yemen ayaa la sheegay inay tahay arrin taariikhi ah Sacuudiga ayaa mar kale kulan xalay ay qaateen
boqortooyada warkii u dambeeyay ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in aysan ka labalabeynin kana gorgortamaynin madax banaanida iyo xuduudaha dalka Yemen saamaynta siyaasadda Sacuudigana inaysan ka gorgortamaynin Sacuudiga ayaa xuduud dheer la leh dalka Yemen waxaana ay Sacuudiga sheegeen in saamaynta iyo xadgudubka Imaaraadka Carabta uu ka waday deegaan gobolka Hadramaut ee dalka Yemen inay ahayd qatar toos ugu wajahnayd Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyaguna war ay soo saareen waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin sida Sacuudiga uu dhaqmay oo ay sheegeen dal walaala oo isbedelay oo markaa qaadayo talaabooyin iyo xadgudubyo uu rabay inuu u geysto waxa ugu yeeray dal kale oo walaal ah Imaaraadka Carabta ayaa u muuqdo in hadda uu wajahayo cadaadis taariikhiya iyo jab ka soo gaaray dalka Yemen waayo walaalahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha uga baxno waxaynu toos ugu gudbeynaa qodobka xiga barnaamijka laascaanood waxaa ka socda dabaaldeg weyn iyo dadweynaha oo iskugu soo baxay banaanka waxaynu dadku xambaarsan yihiin ama ay wataan oo ay xiran yihiin ruuxayaan calanka buluuga ee Soomaaliya iyagoo dadweynaha reer laascaanood sheegay in haddii ay dadka Soomaalidu dhan dhinac u istaagaan iyaga inaysan ka gorgortamaynin Soomaalinimada xuduudaha Soomaaliya iyo madax banaanida dalka Soomaaliya waxa ayna sheegeen reer laascaanood in iyagu islaamka kadib qadiyada ugu weyn oo ay leeshanayaan ay tahay Soomaalinimada waxa ayna sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin inay u ogolaadaan dhul Soomaaliyeed in cadow uu soo galo ama uu ku soo xadgudbo dadka reer laascaanood waxa ay sidoo kale muujiyeen in ay Soomaalinimadu tahay waxa iyaga aboowiyaashood iyo ehelkooda iyo noloshooda ay ku tiirsan tahay waxayna si cad u sheegeen saamaynta Israa'iil ay doonaysa dhulka Soomaalida inay ku yeelato in ay tahay qatar dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wajahayaan si kastaba ha noqotee qodobkaas waxaa jira qodob la xiriiro oo warbaahinta Somaliland iyo wariyaasha Somaliland aad u faafinayaan oo arrin la yaab leh taas oo ma ahan dadka Somaliland oo dhan inay faafinayaan ama ay wadaagayaan ama ay gudbinayaan waxa jira dad reer Somaliland culimo uqaal akhyaar dad badan oo damiir leh ama inta ugu badan dadku ay diidan yihiin oo ay ka soo horjeedaan saamaynta Israa'iil ay doonayso inay Somaliland ku yeelato waxa jira dad reer Somaliland oo aaminsan in Israa'iil aysan kala jeclayn Gaza iyo Somaliland laakiin dood xalay baraha bulshada ka socotay gaar ahaan siyaasiyiin waaweyn iyo wariyaal waaweyn oo Yuhuuda oo barta X ku doodayay oo aan barnaamijka midka uu ku soo bandhigi doona waxa ay tilmaamayeen in si cad siyaasiyiinta Somaliland qaar kamid ah ay u ogolaadeen in reer Gaza la keeno Hargeysa iyo Somaliland la soo dejiyo si markaa loogaga bedesho aqoonsiga sidoo kale warbixintu waxa ay sheegaysaa waxaan ka hadlayaan oo cadeen baan keenaa barnaamijka midka xigan cadoonteedaan keeni doona waxay si cad u sheegayaan in Somaliland ay ogolaatay in base la siiyo ama saldhig la siiyo Israa'iil haddaba ma waxa la doonayaa sidii Falastiin ku dhacday in Soomaaliya iyo guud ahaan Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed in lagu sameeyo waxa jira siyaasiyiin si ay xilka u helaan ama koonfurta Soomaaliya ha joogaan ama qoyga Soomaaliya ha joogaan rabo dadka Soomaaliyeed in mar walba xiisada jirta ay ku kiciyaan si iyaga kursigooda iyo masabkooda ay u ilaashadaan dadku insaankuna wax ma arko ilaa xanuunka ay dareemaan reer Falastiin markii Israa'iil ay soo dhaweynayeen kastaba ha noqotee siyaasiyiintaas waxa ay mar walba rabaan in ay dadka muujad u sameeyaan fursado u muujiyaan laakiin aan xaqiiq ku dhisnayn taariikhda Israa'iil iyo Falastiin waa taariikh duruus badan iyo casharo badan ay ku jiraan wax laga baran karo sida Israa'iil ay ku soo gashay dhulka Falastiiniyiinta iyo maanta Falastiiniyiinta meesha ay marayaan waxa lagu bilaabay dhulkooda in laga iibsado waxa lagu bilaabay inay soo dhaweeyaan in ay Falastiiniyiintu u arkaan bini aadam ay soo dhaweynayaan aakhir waxa ay noqotay in Falastiiniyiinta guryahooda feer iyo darbo looga saaray uma malaynayo Israa'iil inay tahay koox cirka ka timid oo u imaaday Somaliland inay dowladnimo u aqoonsato dowladnimo u samayso oo ay ka xigsato muslimiinta iyo Soomaalida inteeda kale waaye qodobkaas iyo warbixintaas markaynu meesha ugu gudubno waxa iyana jiro warbixin kale oo si weyn warbaahinta qaar kamida wariyaasha reer Somaliland ay u faafinayaan taas waa in koox Yuhuud ah wariyaal ah
oo ay ugu yeereen xaqiiqa raadin ay soo booqdeen Hargeysa. waa wariyaal hadda yuhuuda la soco oo warbixino diyaarinaya mar walbana waxaa lagu yaqaanaa Israa'iil wariyaasheeda inay sirdoon ahaan u shaqeeyaan inta badan. haddaba wariyaashan ayaa la sheegaya inay warbixino duubanayaan, barnaamijyo sameynayaan, waana bilow iyadoo la isgaarin bilaabatay oo u muuqato in ay hadda dardar ku soconayaan. waxaana ay hadda durbaba bilaabeen yuhuudda in ay dadka kooxda dhalinyarada Somaliland markaas calanka Israa'iil iyo kan Somaliland isku dhijinaya waa calankii tawxiidka iyo kii Israa'iil isku dhijinaya ay faafiyaan, ay ku faanaan, oo ay barahooda bulshada iyo warbaahintooda ku faafiyaan, oo ay aad u xayeysiiyaan, oo ay u muujiyaan iyadoo dhinaca kale dhulkii muslimiinta ay qaar ka mid Israa'iil faragelin ku hayso oo ay ugu weyn tahay Suuriya, oo ay ku jirto Lubnaan, oo ay ku jirto reer Falastiin iyo reer Gaza. waaya walaalahay saaxiibada qiimiga leh qodobka iyo qodobada la xiriira markaynu meesha ugu gudubno waxay noo soo socota warbixin ku saabsan boqor Nuur Madoobe iyo talaabo uu qaadayo iyo warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe ee Gaza iyo xaaladda dadka reer Falastiin heerka ay marayaan. qodobada iyo kuwa kale ayaynu qaybta ugu dambaysa barnaamijka ugu tagi doonaa. iyo sidoo kale waxaynu isla eegi doonaa Netanyahu ayaa isagoo ku sugan dhismaha gaarka ee Trump ee loo yaqaan Mar-a-Lago wuxuu waraysi siiyey Newsmax oo ah warbaahin ku dhow maamulka Trump. waxa wax laga weydiiyey sababta Somaliland uu aqoonsaday. waan isla eegi doonaa sababta uu ku sheegay iyo warbixino ku saabsan xaaladahaas iyo umurahaas. marka horese aynu ku yaraa kana walaalaha qiimiga leh. waan rajaynayaa inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan. madaxweynaha aan ilaahdii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo ku sugan aqalka Donald Trump wax laga weydiiyey sababta Israa'iil u aqoonsatay Somaliland. waxa uu sheegay isagoo ku tilmaamay bulsho muslim ah. wariyihii ayaa dhahaya bulsho muslim ah ayaad aqoonsatay. waxaana hadda ay dad badan oo muslimiina dhalishayn dowladda muslimiina talaabooyinka Israa'iil iyo dagaalka ay ku qaaday Gaza. waxa uu ku jawaabay hadal yaab leh. waxa uu yiri Somaliland waa bulsho muslima oo dhexdhexaad ah isla markaana leh nidaam dimuqraadi ah kuwaas oo doonaya inay xiriir dhow la yeeshaan Israa'iil kuna biiraan heshiisyada Abraham Accord. cidii u baahan waxa ay dib uga dhageysan kartaa Newsmax. waxa uu leeyahay sababta ugu weyn ee Somaliland aanu aqoonsanayno waa inay diyaar u tahay inay ku biirto Abraham Accord. haddaba Abraham Accord haddaad reer Somaliland tahay qiiro iyo emotion iyo dareen iyo ku qaadin maanta waxa kuu muuqday ku qaldin waxaad dib u soo akhrisaa oo aad baarta haddaad tahay qof wax akhriyo Abraham Accord. in uu Netanyahu ku celcelinay kelmadaasna adiga raadi labadaas isku geey wixii kugu soo baxo isku dhufso. wuxuu tilmaamay Somaliland oo ah 6 milyan inay ku nool yihiin dad badan oo wanaagsan oo ayna ka wanaagsan yihiin Soomaalida inta kale. waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dad la fahmi karo oo dhexdhexaad oo diyaar u ah heshiisyo badan in ay la qaataan Israa'iil. waa sababta ugu weyn ee Netanyahu uu ku sheegay inuu u aqoonsanayo Somaliland. laakiin aqoonsigaasi intuu gaarayaa miyay fidi doontaa miya Somaliland la aqoonsan doonaa miya arrintii socon doontaa qodobada ay kuwa kale intaan laga doodin Somaliland inay dowlad madax bannaan noqoto la aqoonsado nidaam samaysato horumar gaarto qof uu ogolaan karaa uu taageeri karaa qofna uu diidi karaa aragtida waa lagu kala duwanaan karaa. laakiin in mararka qaar qof muslim ah qaar baa waxa arkay wadaado sheegana oo nusuus iyo adilo iyo Qur'aan uga dhaxraadina in Israa'iil xiriir lala sameeyo saacadan in Israa'iil xiriir lala sameeyo qaar Qur'aan u soo daliishana baan arkay oo aayado Qur'aan u soo daliishana oo dhahaya ma aragtay Ilaahay baa dhahaya yuhuud gaalada wax ka dhaxaynin waa la heshin kartaa. qaar dhahayaan arkay ma aragtay maxaa anaga haddii aan Israa'iil xiriir la sameeyay loogu mashquulaya maxaa loo yeelaya waraawi damiirkii dadnimadii islaamnimada dowladaha kale ee muslimiinta ku aqoonsadaan. midda kale koow Somaliland sharaf waxa weeye inay iyada marka hore is aqoonsatay iyada is aqoonsatay waxay is aqoonsatay doon sare ka hor cidna aqoonsiga uma baahna. laakiin maanta in Israa'iil lagu soo hoos fariisiyo arrin laga kaftama maaha. midda kale qof kastoo Soomaaliya ama wariye noqo ama aqoonyahan noqo ama dhakhtar noqo ama siyaasi noqo haddaa damiir leed ama Somaliland ka soo jeed ama koonfurta ka soo jeed ama Puntland ka soo jeed haddii dadnimo iyo damiir ay kugu dambeeyaan
dhexdhexaad kama noqon karti in Israa'iil dhul Soomaaliyeed iyo dal Soomaali Israa'iil aan ognahay labadii sano ugu dambeeyay aan warbixinteedii barnaamijyada aan sameynayni sida Gaza ula dhaqateen aan ognahay in dhul Soomaaliyeed ay ku soo xadgudubto cid iska daawato cid aqbali karto damiirna ma jirto waayahay markaynu qodobka meesha uga gudubno boqor buur madoobe wuxuu la yimid warayaab leh ninka wuxuu ka mid yahay dadka sida aadka u taageersan ama yuhuud halala hoostago ama nasaara halala hoostago cidda raba halala hoostago nacayb markaad hadalkiisa dhageysto fiiri qofka Soomaaliga ah in qof kale oo muslim oo walaalkii uu nacayb qaado wax fiican ma xitaa dadka Soomaalida ee koonfurta jooga inay dadka reer Soomaaliland nacayb u qaadaan arrin fiican ma xitaa haday dhahaan wan go'aynaa in nacayb u qaado qof aan nacdo ama aad baabi'iso ama aad aflagaadayso cirdigiis ku xadgudubto arrin sax ma ninka wuxuu leeyahay hadda sheekayab sidoo baryahan oo caytamay marba wuxuu iska daa qof caytama lama sheego laakiin warkii ugu qosolka badnaa ee garaad iyo aqli iyo ninkaas ma garanayaan wada dhaqameed iyo boqor cid u yahay sidoo u socdaada wuxuu leeyahay reer Puntland oo macnaha wadadii i'tiraafkan idin tilmaamayna reer Puntland baryahan waxa la isku dayaa in reer Puntland maadaama dani uu aamusan yahay xasan isku xanaaqsan yihiin waxa la rabaa reer Puntland in la soo dhaweysto laakiin reer Puntland cid kasto aqoon leh aqli leh in maanta Israa'iil aad ka raadiso ilaa wadada i'tiraafka uu tilmaamayo uu tilmaamayo reer Puntland ama reer Koonfur Galbeed ama reer Galmudug uu tilmaamayo ama reer Jubbaland uu tilmaamayo boqor buur madoobe iyo kuwa kale iyo siyaasiyiinta kale Somaliland waa yuhuud ha ku i'tiraaf Netanyahu ha ku i'tiraaf waa nin ay raadinayso maxkamadda dambiyada dagaal wuxuu leeyahay ha ku i'tiraaf markaas waxa yaab leh boqor buur madoobe inuu ku darayo oo uu leeyahay Puntlandey haddaan diyaaruna in idin la midoono oo dad Soomaaliyeed ka tagday dadka soo kala Soomaaliya baadleeda waa la midoobaya adoo u wadayna Israa'iil hoos geyso marka waa aqli yaab leh oo kii ugu hooseeya ah marka mararka qaar waxaad maqlaysaa qof magac culimo wato qof magac boqortooyo wato ama qof magac dhaqan wato haddana aqliga caruurta afar jirka xitaa ka liito